marka dadka caanka noqday sidaana caan ay ku soo noqdeen wadadaan wiilkii gabadha muuqaalkooda aan soo gudbanaynin wax bayaala la xumeenin ee faracaana jire asalkaana jire meesha intay ka soo faracmeen dadka dhan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu waa idin salaameel ka soo joogtay waxaad leeyahay xidhay tabaragsan waxaan iga daawaneysaan caabiyaha dadweynaha iyo bakaari media okay asxaabe maanta maxaa cusub maanta waxaan rabnaa mawduuc cusub aan idin bilaawna hadduu ilaahay yiraahdo insha Allah muuqaalada way socon doonaan waxaa way ninkii dislike saaro waa saari karaa ninkii like saari kareena waa saari karaa labadaba waa u fasaxan yahay muuqaalkan waxaa lahaa sidee ayuu ku soo caanbaxay qofka caanka ah ma xumaan mise samaan maanta waxaa martinoo ah Shaadi Sharaf marwo naga raali noqo bariiska ku soo galay bariiska ku soo galay lama kala xanaaqana Allah sheekadaan sababtoo ah wuxuu YouTube ka ku arag la sheegoona wax xumaanay ma jirto si kale wax oo faaqideen ma jirto muuqaalkana dheerna marbane soo socda waxaa la sheegay qofka caan baxay sidoo ayuu ku caan baxay muxuu si caan ku noqday isweydiinaysiin Shaadi Sharaf waxay aad muuqaalkan xilliga ay duubaysay 2 sano iyo bar 3 sano ka hor meelahaasa laakiin muuqaalka ma ubo laakiin waxa uu jeedaa tuuyeerasa u jeedaa runta isku sheegna marka runta xaqiiqda waxay tahay maanta haddii aad rabtid inaa caan aan noqdid xaqiiq waay inaba fool xumo ku soo baxdid waxun asamaysid tusaale waxaa la yaabeysiin gabdhahan oo iyo wiilkan TikTok ku jiro muuqaalada daraad ah soo qaadanaya waxaa laga yaabaa inaa la yaabtiin dadkaana ee ka soo faracmooyin faraca inta waay faraca inta ka socda faraca igu qabo tartiib ila arka Shaadi Sharaf waa ognahay marow waaye waxaa waa reerkeeda Allah u dhaqo bariiska laakiin maanta idoo soo galay maanta adoo ku saareeyahay sidee ayuu caan ku noqday qofka caanka ah muuqaalkan wax kale ma ku saabsano ma isku caaynayo ma isku aflagaadeynaayo sidoo caan ku noqday waa barnaamijka xaqiiqdana waxa waaye qof walba oo caan ee maanta aragtid in 80% oo xumaan oo ku soo caan baxay ma jirto qof wanaag ku soo caan baxay ilaa wax yar laakiin waxa liiskan ku jiro dadiyo far badan oo wanaag ku soo caan baxay muuqaal kale la daawado oo Shaadi Sharaf ah markaas showga dadaan kala kicinayay marka dadka caanka noqday sidaana caan ay ku soo noqdeen wadadaan wiilkii gabadha muuqaalkooda aan soo gudbanaynin wax bayaala la xumeenin ee faracaana jire asalkaana jire meesha intay ka soo faracmeen dadka dhan marka macnaha cabsi managa ahaan su'aalaha wataa hay soo jawaab Soomaaliya su'aashaas dhaxdhiga haye nin iyo naag ama wiil iyo gabar kee ciyow caan noqon kara jawaabtu waa xaqiina balse waxa ogaanaysiin barnaamijkan maanta aad diyaarinay Shaadi Sharaf waa ognahay inay marwo tahay inaa ceebeysan marabno laakiin muuqaalada intay meesha ay ku jiraan waxa xaq u leenahay wax walba arag inay soo gudbino asxaabta aad oo maasantiin